jacaylka dhabta ah waa kan aadan waxba dib u filanaynin. La jir oo dooro qof ku faana inuu adiga ku haysto. jacayl u qaada ruuxda qofka, ha ku jeclaan wejiga. jacaylku waa marka qofka kale farxadiisa ka muhiimsan tahay adiga taada. waa in aad qof u jeclaataa xaalad uu dareemo xornimo buuxda. xidhiirka jacaylka ma ahan imtixaan lagu baaso ama lagu dhaco. ma ahan tartan lagu guulaysto ama lagu guuldaraysto, balse waa daryeelid aad qofka daryeelaysid in ka badan naftaada. marka aad qof si dhaba u jeceshahay khaladaadkooda, maskaxda ayaa ah midda xanaaqaysa, laakiin qalbigu waa sidiisii. jacaylku waa marka aad qof ag fadhido adiga oon waxba qabanaynin, sidaasay tahayna aad iska faraxsan tahay. jacaylka waajib ma ahan inuu meel kasta ka dhammaystirnaado, keliya wuxuu u baahan yahay inuu dhab ahaado. jacaylku ma ahan inta jeer aad u sheegto qofka inaad jeceshahay, balse waa ka dhabaynta in hadalkaasi uu run yahay. jacaylkan ugu fiican waa kan kaa dhiga adiga qof aad u wanaagsan. jacayl u qaad qof ku raaxaysta waalidaada, ma ahan kan kugu qasba inaad caadi ahaato. ha noqon qof barya jacaylka. dadka quruxda badan mar waliba ma ahan kuwo wanaagsan, balse dadka wanaagsan waa dad mar waliba qurxoon. hal qalbi oo qurux badan ayaa wuxuu ka wanaagsan yahay kumanaan weji oo qurux badan. jacaylka dhabta ahi wuxuu ka dhashaa isfahanka. jacaylku ma ahan waxa aad dhahdo, balse waa waxa aad u samayso qof kale. jacaylku ma ahan kan dhex mara gabadh qurxoon iyo nin lacag leh, balse waa kan dhex mara laba qalbi. ha inkirin qof adiga si dhaba kuu jecel, qof kuu huray wax waliba, waayo maalin ayaad ogaan doontaa waxa aad iska lumisay. muxuu yahay farqiga u dhaxeeya waan kaa helay iyo waan ku jeclahay? fiyoore marka aad ka hesho waad soo goosataa, marka aad jeceshahayna waad waraabisaa maalin kasta. kuma dhinto jacaylka masaafada fog, wuxuu ku dhintaa kala aamusnaanta. dadka kugu jeclaada wejigaaga weligood kulama jiri doonaan, balse kuwa arka quruxda qalbigaaga ayaa mar waliba kula jiri doona. marka muxuu yahay jacayl? waa dareemo macaan oo gudaha laga dareemo. ugu horrayn jeclow nafsadaada, kadibna u jeclow lamaanahaaga si shuruud la'aan. mahadsanid. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waxay noo balanaa muuqaalka xiga. intaan la gaarinse waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fii amaanillah.